بسم الله الرحمن الرحيم. فرينتا أن ما أنت ولا للسوق بينيو وفرين هرنا ندي الله وداعي وكعلنا إن شاء الله تعالى وحنا نشعل هنا نكوع علينا. وأنا ضدك فرح بدنا الظلم جاي ربك وهيستقر كم ده إن نبررشيو ربك هيستصدق إنه ولا قيب قادن له. واللقيط وضدك وضد الوصا طوره أما ضدك هو يدا يا بهبان لهين لوجين. in fara badan tacadiyaad iyo xadgudub fara badan bay bulshadeena kala kulmaan hooyadiisina ku qaaday ilmaha ama tiin bay ku ridaa ama baaldi bay ku ridaa ama suuli bay kaga dhex tagtaa dadka qaar saasay ku dhintaanba qaarkoodna way badbaadaan laakiin waxay ku badbaadaan nolol adag oo dhimashadu dhaanta mararka qaarkood waxaynu insha Allah tacaala laba qodob ka tilmaami doonaa fuqahadii iyo shariicada bal hadda maxay shariicada islaamku ka qabtaa qofka zinada ku dhashay Soomaalidu waxay ku weydiinayaan sheekhow ilmaha la soo tuuray waladu sinaha ay jannada ma galaan la yiraahdo maxaa ka jira jannada Ilaahay kuma xidhna nasab qof macnaha noocaasna xadiis baa xataa lagu wariyay in la yiri la yadkhulu aljannata waladu zaniyatin jannada ma galo mid zina waladu sinaa culimadu soo waxay yiraahdeen ma sugna xadiiskaas xataa hadduu sugan yahay waxa loo jeedaa waladu zaniya bimaana saaxibu zina qof sinaysta sida qofka markaa wadada maraba ibnu sabiil loo yiraahdo ayaaba qofka sinada badan la ibnu zina loo yiraahdo marka qof sina badan janna ma gala loo jeedaa laakiin qof sina ku dhashay janna ma gala sidaas ma ahadiisa ku soo aroortay sharru waladu zina sharru thalatha saddex marka labadii kala sinaystiye kay dhaleen waxa ugu shar badan kay dhaleen waxa loo jeedaa bay culimadu ma sugnay isaga laftiisu iyo xagga nasabka laakiin loo jeedaa oo kuwa hore nasab bay leeyihiin laakiin isagu zina ku dhashay meelahaas iyadoo laga duulaya xadiista daciifka ayaa marar badan waxa dhacda dhalinta kacaanka iyo meelaha caruuraha noocaas ee lagu hayo bulshada inteedii kale iska daaya xataa culimadaas ka naarta oo sadaqaadka iyo zakaadka iyo inta badan ma maqlo waa inta anigu ogahay in meelaha noocaas iyo lagu bixiyo ma maqlo xarumaha dadka waalwaalan waa lagu qalaa lagu bixiyaa xoolaha meelaha dadka agoomihii ku jiraan waa lagu bixiyaa laakiin dadka noocaas iyo meelaha ku jiraan laguma bixiyo waxaan tilmaamayaa dadka noocaasi waa waajib in la koriyaa sida fuqahaadu sheegeen waajib sharci waxaanay ku waajib tahay dadka muslimiinta ah baytul maalka iyo bangiga muslimiinta in laga biiliyo hadii la waayo nawaa inay dadka muslimiinta ah koriyaan oo iyagu ay u kacaan iyagu ay u guntadaan kullu nafsin bima kasabat rahina naf kasta waxa loo haystaa waxay kasbatay waladu zinuhuna waxa laaliyo wuxuu kasbaday oo sinadii hooyadii iyo aabihii kaga xidhan ma jiro qawaacida shariicadana waxaan ku naqaanaa walaa taziru waziratun wizra ukhra naftan baabtay naf kale dambigeeda ma qaado hadduu qofkaasi qof wanaagsan noqdo oo ilaahayba ka badbaadiyo xaaraantii uu ka abuurmay aarkeedii iyo saameynteedii hadii ilaahay ka badbaadiyo oo qof wanaagsan uu noqdo bulshada intooda kale waa inuu la mid noqdo oo la karaameeyo way oo karaamadii walaqad karamna bani aadam ilaahi usii loo ilaaliyo ibn hazm al-andalusi wuxuu rahimahullahu ta'ala qofka noocaasiya ee meelahaas ku dhasha waxa aad u wanaagsan buu in loo geeyo hooyo caana siisa si hadii walaalo nasab uu waayay walaalo radaac uu helo dawladihii hore sharci waxay sameyn jireen dawladihii Uthmaaniyiintii dawladihii ka horeeyay masaajidada iyo meelaha waxay u sameyn jireen meel ilmaha yar la soo dhigo oo qofku markuu halkaas soo dhiga laga qaado waliba waxay sameyn jireen laba fargal oo isku eeg midalan oo hooyadii ilmaha soo dhigtaana fargal ay qaadato midna ilmaha ay ku reebto si hadhow toolaba haday soo noqoto muddo kadib ilmaha markuu koro loo siin karo saasoo kale la sameeyo weeyaan كل فتن كي زينة يوحى واحد كيني يقولون كمرك هرين له يستاهل وعرورت أن لقى جوينه ذات كواوين شرع وحدود ومريجية برته وزينة دقي الصدا ودقي الرجل يضمر كأن لك رصارية جنسي جاء كشرع وواحد يوين المرة هذه دولة الربع لكن معناه هذا ما هدم بيجي على سكيل قالين قوة على جتره برشدة يعول ماذا لين يراده دمان حياتك سما فلك يدك على الخير كا قضية ده سواء قضية لقى مسيح هلو برارجوه تذكر هالله حريصته وحلا ترى وإنسان يده يبنو آدم تنمده يدد كان موحدين ته إلهي وحيدية أين إن شاء الله وقربها السوق بسنة سينو كالمين لهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته